عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلام من مانتي مال بدون كجوكان وسوبر ومان يوتيوب جنا كداون سان يعني تا official waxaan leeyahay soo dhaad mar laadi mar saddexaad ma sha Allah alxamdulillah soo noqdana aysan maalin kale qurux badan maanta waxayna wada video cusub videogeena saa u jeedina masaaciban kor ka soo aragteen wuxuu ku saabsan yahay su'aalaha Instagram ka soo dhigay aniga kulli xaal saa ugeedeen waxa joognaa Lankaabi alxamdulillah hada waa soo laabanay magaaladina ku soo laabanay soo adeeda ma santiin dad badan waxa arka commentiga ku soo qoray ayaan tahanaga tagin hadaa baxo waan la socdaa aan ma fahanteen hadii codkayga oo xoogaa idin soo gaareen iswiin boolka fadhiya ay u qaata wallahi xaafadida oo soo xiisay ma fahanteen qof walba xaafadiisa oo u xiisaya aad u maasantiin soo ugu dambeyn waa kana alxamdulillah say u soo duceysay aad u maasantiin xoogaa waxa rabnaa dalxiis aadna laakiin insha Allah safarkeena oo soo socda ma fahanteen aad u maasantiin dad badan oo waxa arkeen maalin sawir soo dhigay Instagram-ka aade maxay aaminsantahay qof isla weyn qof daacad ah qof maskiin ah qof xanaaq badan yes dad badan waxa arkay fikradaha waa lagu kala duwanay dadka badan waxay leeyihiin qof naxariis badan qof maskiin qof daacad laakiin dad badan waxay soo qoray waxa uu ekay qof isla weyn hadaan isla weynaan misla yaraala isla weyninka kiima hanya oo qabka ah maahanya oo kibirka ku jira kaas maaha ilaahay baraali kama ahan kibir isla weynin soo dhamaantii waa maasantiin dad badan waxa arkay su'aalaha soo weydiinay dhanka Instagram-ka dadka dhan waxay dhaayeen ayaaniita xagee aad waxa aaday Lankaabi soo hadda waa soo laabtay magaalada ku soo laabtay ugu dambeyn alxamdulillah ku faraxsanahay muddo kadib inaan soo laabto war markii ugu horeysay aan yaani video soo duubo sida soo laabtay marka dhamaantiin waa maasantiin aad u maasantiin sidoo kale inta waxa jira dad badan oo soo weydiinay ayaaniita adi familiga meesha joogmiya YouTube-ka ma soo muuqanayaan familiga ani ahaan hadii ani jooskayga ee tahay dadkaas waxa wuxuu ku mashquulsan yahay noloshooda kala ka badan ma fahanteen social media wuxuu u arkaa maalayacni uu yahay laakiin inkastoo dadka isku mid ah qof walba si gooni uu ku soo galo qof walba si gooni uu isticmaalo hadana ma aha social media jecel wuxuu ku mashquulsan yihiin danahooda shaqooyinkooda waxbarashadooda caruurtooda noloshooda kala ka badan fahanteen familka saal qof oo saaqada ka soo bixi jirin fahanteen laakiin familka saaqadina ma jiro maleena yes soo intaas kaftan waaye ani ahaan fikirkayga ahaan hadii aan ka hadlo ani ahaan ma jecli in familkayga social media ka soo muuqdaan sababtoo ah ana ku jiro inay faa'iido leh waan u jeedaa soo maro marka qof kale inuu soo galo kulay qof walba jooso leeyahay qof walba asiga ma fahanteen noloshiisa xukumo qof walbana ase u taala wuxuu sameeyay laakiin ani ahaan go'aankayga ma jecli hadii meesha iska joogayaan social media ugu soo ciriiriyeen alxamdulillah hatta ma jecli in codadkooda laga maqlo marar badan dad badan waxa arkay barnaamijyo ku soo sameeyay familigaaga soo hatta waxa uu ogoleen hatta inaan ma fahantaa codkooda ka soo muujiyo soo waxa laga yaabaa hal qof inuu social media hadda ku jiro oo ninka dhankeena qof waalid u ahay inkastoo caruurta waalidku ahay iyo kuwa walaalaheeba aan jecleen inay ku soo muuqdaan hadana qof walba waa saa idin sheegay qof walba iyo jooskiisa marka su'aalo badan waxa jirtay dadkii soo weydiinayna ayaaniita goorma guursanaysaa goorma guursanaysaa dalxiiska ay isku raacdeen intee aadeen dalxiiska kulay waa la badnaa laakiin dad oo kaamirada ogol ma ahan ama dad kaamirada inuu soo muuqdaan rabaan ma ahan waa dad kaamirada nacab ma fahantay only me akariga kaamirada only me anaga bis isku aadinayna Snapka de aan leeyahay iyo Instagram-ka de aan leeyahay alay kul xaal waqti qurux badan iyo waqti qurux badan aan soo wada qaadanay jawi kaaliska arag kulay marka magaalada ka tagto magaalo kale aad tagto khibrad un baa ku soo kordhaysa inkastoo magaalada hadda joognay aad u kulushahay cimiladeeda hadana wadanka dhan aa kulul laakiin meesha hadda ka imaan aad u kulushahay sababtoo dhul xeebaad waay meesha xeeb waay soo markay dhamaantiin waa maasantiin isku soo naqad wanaagsan sidoo kale inta dad badan waxa arkay Instagram-ka soo dhahayo ayaaniita goorma Malaysia ka tagay ayaaniita rootinka inoo soo gali ayaaniita san waay kul xal muhiimada ah intuu soo fariisana waxay tahay inaan su'aalihiin idin jawaabo soo marka su'aalihiin akhri doona insha Allah hey yes qofku hore wuxuu dhahay ani ahaan fikirkayga marka ka hadlo waxa tahay qof faraxsan yes qofka kale wuxuu dhahay ani ahaan waxa ila tahay qof faraxsan qof dabeecad xun
waxaa tahay qof dabeecad xun Anita runaantii waxaa tahay qof dabeecad wanaagsan qof dulqaad badan Anita waxaa tahay qof isla weyn sababtoo ah Instagram-ka mar badan kala soo hadlay laakiin iima soo jawaabin I'm sorry ma arkin brother ama sister I'm sorry ma arkin aad ugu xumahay soo isla weyn ma aha qofka waxa laga yaabaa inuu arki waayo qoraalkaaga ama waxa laga yaabaa maanta inuu dad qoraal soo qoraayo qoraalka ugu horeeyay inuu gadaal u laabto soo hadi insha Allah waxa ku raadinaa follow baa ku raadinaa ma fahantay yes Anita 300 subscribe coming soon insha Allah waa sugi laahay maalinta u dhawaadayso insha Allah sidoo kale inta ana xataa waa sugi laahay comment ku soo qor qofkii saadaali maalinta sida saxda ah ayaan qorana video head like video ka sameeyay videos waxa laga yaabaa hoos inuu mar ana xataa ciwaanka ku qoray inaa ilaa laga yaabaa laakiin hadda maadaama ay soo dhawaato markaas waxa laga yaabaa in 50,000 ama 100,000 ku dhawaad inay nooga dhinnaad 80 meelaas inay nooga dhinnaad laakiin hadda saa aragteen 19,000 nooga dhiman soo comment ku soo qor xilliga aan gaarayo 300,000 subscribe hadda xilligaas ay gaaro aad soo sheegto waxa uu leeyahay $100 $100 oo leeyahay qofkii soo saadaaliyo maalinta saxda ah taariikhda maalinta saxda ah gaarayno 300,000 subscribe wuxuu ka bilaaban doonaa hadda ilaa wuxuu ku egyahay waxaan siinaa adi 5 days ku egyahay 5 days kadib wuu xirmayaa saadaalinta aad u baasantiin qofkan kale wuxuu leeyahay Anita waxa rabaa inaan ku weydiiyo su'aal abaayo adiga iyo abeer xiriirkiin xaguu ku dambeeyay والله ماشي عرفتنا كدن بين فانتين Anita runtii su'aal waa ka dhintay laakiin su'aasha ku weydiinaya waxay tahay abay Malaysia rabaa inay imaado waxbarashada iyo rabaa inay iga caawiso iyo jaamacadaha soo marka please ama ma san follow back soo dhig okay qofkan kale wuxuu dhahay Anita abayo waa ku mahadsantahay sida quruxda badan ay iga soo jawaabayso fariimeyga soo su'aal waa ka dhintay laakiin waxa ku dhiilaa hor u soco cadawgaaga ha jabo dhaka u dhigin soo aad u mahadsantahay walaalkay qaali ah sidoo kale qofkan wuxuu dhahay Anita goorma jeclaan lahayd social media ina iskaga baxdo oh my god wallahi waqtiga noqoto social media kulay يعني وقتي يجوا أنا هاي حلقاس جوجنا مجلسه لكن مستقبل كدو وحاليا أنا جوجي صوتها هذا وحاي فأنت وقتي أسكيق قادنا وقتي أسكيقنا لكن إن شاء الله تعالى هدي ودن كان كتر وحاليا أنا أسكيج حتى وحاليا أنا ودن كان كتر هنا أسكيج so Anita وحاربا إنها قوهم بلي يستحبوا قلوكم سبسكرايبرز oh my god wili ma la gaarin aad u mahadsantiin soo marka dhamaantiin waxaan rabay inaan idin sheego kaliya inaan soo laabtay oo wadankeyga kula wadankeyga ma awal ka tagay yani inaan ku soo laabtay ma sha Allah kulay qolbo ka eldo waxa dhilay kaabi afartan joogo maano buu aad kulay waxa afar badan ay kaabi tajwaaban kaabi tag soo booqo soo dalxiis soo baashaal waxa arkaysaa kan ka duwan wadan kale inay joogto soo xaqeeysan fahamtay waxdii habeenka ama xana soo kaca oh my god I like it wallahi fikir la fahamtay aad u mahadsantiin sidoo kale inta wax xanuunsanay waa ii jeedin wili iso duceeyo fahamtay Soomaaliyeed ka muuqata inkastoo xanuunsanay hadana waxaa qof ogaay kaamirada gadaasheeda wuxuu taagan yahay adii xanuunsan tahay xataa ma laga aamaan helay yes marna video ku sii dheeraana waxaan ka tagayaa inta muuqaalka xigta doon sidaas iyo nabadgelyo bye bye